magacayga waa Dr. Yusuf Sheekh Cumar waa agaasimaha guud ee barnaamijka Itqaan. Marka Itqaan sida kelimada Itqaan ka muuqata waa in la sugo shaqada la qabanayo iyadoo lagu saleynayo aragti islaami ah. Qofka inay cibaado u noqoto, shaqadiina si fiican oo hufan oo la yaqaano inuu u guto. Runtii waxaa aad i soo jiitay ka qaybgalayaasha Sombank ee qiimaha badan iyo sida xoogga leh maanshiilka iyo maskaxda leh ay uga qayb qaadanayeen tababarka isla mataqaana falgalka. runtii waxaan isleeyahay tababarkan waa tababar saameyn leh, saameyn dhan kastaba hadday noqoto xag cibaado, hadday noqoto xag shaqo, hadday noqoto xag adduunyo, intaba waa tababar saameyn sababtoo ah waa cilmi ku salaysan maadi iyo diin labadaba. Marka qofka hadduu qaato waxaan isleeyahay waxaa laga yaabaa hadda inaan ku mashquulsanahay kaliya xagga mabaadi'da maadiga ah, laakiin runtii tababarkan wuxuu aad anigu saameyn ugu yeeshay inuu related la ahaa xagga diiniga oo wax kasta oo ku saabsanaa shaqada, integrity-ga, niyadda, in de axaadiis iyo ayada quraan ee asal u ahaayeen oo runtii direction fiican i toosisay aniga. runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay tababarkan qiimaha badan leh ee dhowrka maalin socday inaan qayb ka ahaado. ciwaankiisuna ahaa Islamic Work Ethics. runtii waxaa saameyn aad iyo aad igu yeeshay mowduucii ahaa integrity-ga oo hufnaan iyo daacadnimo iyo howlkarnimo in aan ku qaadanay mowduuc aad iyo aad xasaasi u ah aadna muhiim ugu ah goobaha shaqada gaar ahaan fildigan ku jirna Islamic Financial Institutionska waliba bangiyada. runtii mowduucaas waxaan ka faa'iidnay ama aan ku baranay waxaan dhihi karaa waa in goobtii shaqada ay noqoto goob aad iyo aad akhlaaqiyadkeedu u dhisan tahay. maxaa la yiraahdaa Islamic Ethics-kana lagu weyneeyo. runtii waxaan is leeyahay mowduucyada noocan oo kale ah haddii ay qaataan dadka ka shaqeeya financial institutionska inay ka faa'iidi doonaan horumar wanaagsan, institutionkan ay ku hogaamin karaan inuu goolskiisii si fudud ku gaaro. tababarkan Itqaan waxa saameynta ugu yeeshay barnaamijka qaybtii ay niyadda ama intentionka iyo qayb kale waxaa jirta iyadana integrity-ga. labadaas qaybood waxay lahaayeen muhiimad aad iyo aad weyn, sidoo kalena saameynna way igu lahaayeen ani shakhsiyan. haddaan ka hadalno qaybta oo intentionka ama niyadda waxaa yani ay ku baraysaa maadaama uu ku saabsanaa Islamic wax walba aad samaynaysid haddii aad u samaysid niyad wanaagsan inaa adoo shaqadiina wanaajiyay haddana ku helaysid ajar ilaahay xaggiisa. qaybta integrity-ga markii la aado ayadana sidoo kaleeto waxaa ii sheegay ay muujinaysaa in maaragtay ilaahay ay raali gelinayso wax wanaagsan oo shaqo wanaagsan ku qabanaysid. tii qof walba oo maaragtay aanan barnaamijkan aan ka qayb qaadan ama aanan fursad u helin waxaa rajeynayaa ama aan jeclaan lahaa inay fursadaas ka faa'iidaystaan. runtii tababarada Itqaan waxaan soo jeedin lahaa in lagu daro sida communication-ka kale, prioritization-ka qaabka loo sameeyo iyo wixii la mid ah. The part that has really impacted me is on the concept of Islamic work ethics, whereby work is it's a form of worship, and it has it's wajib on every Muslim, and they also the effect of the impact of good intention on work, whereby if your intention is good, you are going to gain reward not only in this dunya and also in akhirah. Allah is going to reward you. shaqaaluhu aad bay runtii u tayo sareeyeen, ka qayb qaadashadoodu aad bay u tayo sareysay. la falgalka iyo fikradaha dheeraadka ay keeneen ama khibrada ay ka soo kasbadeen oo maalinlaha ah, sheekooyinka ay nala wadaagayeen oo barnaamijka mataqaana la xiriiray, suugaanta ay mataqaana nagu kabayeen iyo aqoon guud oo runtii aqoon isweydaarsi ah ayuu ahaa. wax badanna waan ka faa'iidaystay. waxaana dareemayaa tababarada aan bixin doono inay sidan kasii wanaagsanaan doonaan iyo qiimeyntii foomkii qiimeynta mataqaana ay u buuxiyeen oo nasna gadaal mataqaana uu eegi doono. marka waxaa kaloo aad ii soo jiitay in maareeyuhu uu goobjoog ahaa oo qofkii ugu sarreeyay ee meeshan maamulayay inuu runtii goobjoog ahaa oo shaqaalahana dhiirigelin u ahayd, qofka bixinayana dhiirigelin u ahayd, asagana inuu goobjoog ahaado iyo dad kale oo kooxa oo ayagana online-ka nimcada Allah iskale online-ka mataqaana nagala xiriirayay ama halkaa mataqaana kala socday barnaamijkan tababarkan. marka si jointi ah ama wada jira in Itqaan iyo Sombank isaga kaashadeen si qiimo badan
oo smooth ah oo qiimo badanna inuu maanta noogu soo dhammaystirmay wejigii koowaad ayaan rajayn qaybaha kale oo dhimana marar kale inaan aniyo itqaan iyo isla tansiiqiyaan ama isla coordinate gareeyaan iyo Sombank ayaan rajaynayaa waad mahadsantihiin Sombank Bank for